السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد وعد السلام يا ولي بحين جودها كجرنا برنامج كي تحنها أي كساب سنة أخلاق ذا النبي إيه سدا هيد ما أنتوا حين كهذا الدورنا هذا الكي النبي سدوا هل يجري قف كفت مموها قفان كفت من مموها إن شاء الله تعالى ولا شيء فرتون أي درس جاسيتي سو إكتا إن شاء الله وهل كنا إنه جاه داد هنيسة برنامج كأني جاي إضبا إن فرتون يسود وبالكورن هذا النبي هذا الكيس سدوها قف كفت ما يموها رسول صلى الله عليه وسلم هذا الوناكسن وها هرت جوامع الكلم وعامكو أها هذا لا يرى كونه مرتله wax badan xambaarsan ما شاء الله hadalkaas uu lahaan jiray oo jawaamic kale loo yaqaano صح eraya aruursan oo murti badan xambaarsan صح marka uu ahaan jiray mesela saxaabi oo imaad yaa rasuul ii dardaaran la taqdab argu yiri bas inta saa halkaas kelmad wala ma dhaafin la taqdab ha caroonna loo dhaha ha caroonna markii la baaro buuq badan laga qoray macnaha qofku ku carooday waxyaabaha ka qaldamaya maskaxdiisa isu bedelayso dhiigiisu wareegsan waxay tahay caafimaad darrada soo wajahayso waxyaabaha go'aanka qaldan oo intuu iska gaaro uu hore ka fulinayo dibka ka dhalanayo dadka isku dhacaya marka carada keento ha taqdab kaliya research laga sameeyay صح marka waa hadal muftiyad kooban saxaabi kale inta ahay maxay ahayd yaa rasuulullah maxay tahay shariicadu way ugu badatay maxaan sameeyaa qul aamantu billaah thumma istaqim al ghayr bas ilaahay waa rumeeyay toosnow das maxaa wax kasta ka toosnow waa macna salaadii cibaadadii gurigaadii maalkaadii kulli toosnow insaan mustaqiim noqo marka jawaamic kelmkaas u badna al hajj arafa oo bas hadan ma kale ku xajinay xaj oo dhan waa arafa maanta arafadaan tagan xajkaada ma jiro al hajj arafa saasoo marka hadaladaas kooban u isticmaal jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka waxa kale dadka hadalka markuu la hadlaayo saddex jeer ku soo celin jiray tafsiil uu kala dhigi jiray si dadka dhan u fahmaan wuxuu isticmaal jiray usluub niqaash waxa loo yaqaan tarbiyada marka macallin tahay ardayda marka inay soo jeediso rabto waxa ku bilaabaysa question su'aalaha ku bilaabaysa si ay ku soo wada eega yaa waxaas garanaya yaa yaqaan muhiimadaada waxa waa ina intibaahooda soo jeediso marka saxaabada markuu la hadlayo shay muhiim u sheegay raba tadruuna kada wa kada u dhigay waxaas ma taqaaniin markii hadana mar labaad ku soo celinaya marka inay soo wada eegaan soo wada fiiriyaan oo arko allah wa rasuuluhu a'lam ilaahay rasuulkiisa bas yaqaan kabacdi u sheegi jiray اسلوبkaas inuu isticmaali jiray oo اسلوب min niqaash loo yaqaano su'aal inuu iska soo hormariyo intuusan sheegin shayga uu rabo inuu saxaabada u sheego taasna uu yaqaanay maxay ahayd dadka markii la hadlayaan noqdo qofna uu dhageysan jiray oo aamusnaantiisa badneed sidoo kale dawla cadeyntiisana way badneed sidoo kale uu kaftami jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuuna ciyaari jiray Aisha isagoo la ciyaaraya saxaabi baadiyaha ka imaado isla ciyaari jireen jirto oo saxata xadiista ku imaaday oo la kaftami jiray markuu suuqa yimaado caani wax isagoo wad aggato rasuulka soo mari jiray sallallahu alayhi wasallam caani wax uu ka keenay jiray markaas la ciyaari jiray la kaftami jiray baadiyaha magaalada dhaqankooda ka duwayeen wayna sheeka badiyeen wayna kaftan marka uu la kaftami jiray oo la ciyaari jiray sidoo kale wafdi oo imaaday carabta marka lahajada kala duwan ku kala hadlaan qaar baa hamzada akhrin yu'minuuna dhaho marka sida quraanku imaado kaleento qaar baa maxay ahayd marka wuxuu arkay qoysa u imaado marka ashi miim u bedelayaan al meesha dhilaha am ee u isticmaalayaan markaas ayagana markuu fiiri amti u bedela asna amti u bedela markaas laysa min ambirin misyam fi safar u dhaay asal ahaan waxa laysa min albirri asyam macna bisha ramadaanka marka safar ku jirta soonka maxay ahayd waa ka ruqsay waa ka fasaxay laga marabo marka ayagu am miimki ashi miim u bedelayo arkay asna u bedelo sidee ayagu am u isticmaal laysa min ambirin misyam fi safar u dhaay macna sabafalka iyo ihsaanka kamid ma soonna bisha maxay ahayd safarkina soonta yani afkoodu fiirisay u hadlayeen oo la hadlay way fahmeen marka wax uu sheegay way fahmeen marka saas uu ahaa marka jawaamic kelmkaas u banaan jiray ومركا waxaan jiray marka maxay ahayd waa kafta yaadal udunayn ninka labada dhagood lahow soo dhaxta xadiis oo ku imaaday marka aamusnaantiisana way banaan jirtay saxaabada kale inta markay sheekaysanayaan asaga dhexdu kaga jiri jiray kursi gaal ay meel gowr gooni u soo amuusan ahaan markay qoslaan uu qosli jiray markay dhool cadeyn wala dhool cadeyn jiray yani insaan caadi ah oo maxay ahayd inta badan dhool cadeynkiisa ka badnayd la yiri maxay xanaaqaysa markuu xanaaqan xid gudana meeshan ka soo muuqan jiray oo marka uu laga fahmaayo mesela markay saxaabada ay duruufaysan ama saxaabada duruufaysan baadiyaha ka imaadaan oo baahi qabto oo maxay ahayd wax raadinayaan aad buu u murugoon jiray kasoo dana ka taxadari jiray wax raadin jiray in wax la siiyo wax u aroorin jiray marka muxuu ahaa insaan uu ka maxay ahayd aamusnaantiis ay ka badan tahay si maalaaycan uma hadli jirin waqtiga hadalku munaasibku uu hadli jiray waqti uu hadal dheer loo baahay hadal dheer ugu hadlaya waqti hadal gaaban loo baahay hadal gaaban ku hadli jiray ما شاء الله
aad uma santahay fartuune dabcan halkaas ma inoogu egyahay horta taxanihii mise inta soo egyahay insha Allah taala aad uma santiin asxaabta haddii aad rabtiina dib ayaad page-kan iyo YouTube-kan ba uga daawan kartaan isagoo taxana ah ayaynu sameynay tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh